dunidani waqti ayay gelisay helitaanka xogta qofka ay u aragto in ay muhiim tahay in wax laga ogaado noloshiisa. Soomaalida waxaa jira dad badan oo ay muhiim tahay in wax laga ogaado habnoloodkooda. toddobaadkana waxaan idin hayaa taariikh nololeedka daaciga weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Maxamuud Cabdulle Cariif. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا. Sheekh Maxamuud Cabdulle Cariif waxa uu kamid yahay culimada diinka ugu caansan ee ugu magaca dheer Soomaaliya. Aragtidiisa iyo maqalkiisa kumanaan dad ayaa danaya. waxaana uu kamid yahay culimada lafdhabarta u ah bulshada Soomaaliyeed, waxaana uu caan ku yahay ka hadalka iyo faafinta khayrka Alle. sanadkii 1959 ayuu Sheekh Maxamuud dhashay, waxaana uu ku dhashay tulada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. sanadkii 1967 ayuu bilaabay waxbarashada Quraanka Kariimka, wuxuuna ka bilaabay tulada Caadley ee isla gobolka Shabeellada Dhexe. sanadkii 1969 ayuu si toos ah u dhameeyay waxbarashada Quraanka Kariimka. isla sanadkaas waxa uu bilaabay inuu barto culumta Islaamka. sidoo kale isla sanadkaas waxa uu bilaabay inuu noqdo macallin dugsi Quraan, waxaana uu ka noqday macallin dugsiga uu dhiganayay. sanadkii 1969 ilaa sanadkii 1994 waxa uu ahaa macallin dugsi Quraan, waxaana uu soo saaray culimada diin fara badan. Maxamuud waxa Quraanka baray macallin Maxamed Macallin Cigaal oo in badan oo kamid ah culimada diinka Soomaaliya soo saaray. Sheekh Maxamed Macallin Cigaal waxa uu ilaa hadda dhigaa dugsigii uu ka soo baxay Sheekh Maxamuud. sanadkii 1976 ayuu Sheekh Maxamuud Cabdulle Cariif u soo wareegay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si uu halkaas uga bilaabo waxbarashadiisa maadiga. Sheekh Maxamuud waa madii waxaa dhalay Sheekh Cabdulle Cariif oo si wanaagsan loo yaqaanay iyo hooyo Xaliimo Calow Hilowle oo ka soo jeeda qoys beeraley iyo xoolo dhaqataa. sanadkii 1960 ayuu dhintay Cabdulle Cariif oo si wanaagsan loo yaqaanay xilligaas oo Sheekh Maxamuud jiray 2 sano. sheekha waxa uu ku soo koray agoonnimo, waxaa soo korisay Allah u naxariistay ayadii Carwo Maxamed Cabdi. waxa uu ahaa nin hanaqaad wanaagsan, jecel waxbarashada Quraanka Kariimka, waana tan sababtay inuu noqdo daacid diinta Islaamka si wanaagsan u bartay. sanadkii 1977 ayuu ku biray dugsigii dhexe ee Sheekh Suufi, waxaana uu dhiganay ilaa sanadkii 1979. sanadkii 1980 ayuu bilaabay dugsiga sare ee Sheekh Suufi, waxaana uu dhiganay ilaa sanadkii 1984. inta uu waday waxbarashada dugsiga sare waxa uu sidoo kale baranayay kutubta diinta Islaamka oo uu ka baranayay inta badan masaajida magaalada Muqdisho. jaamacadda daraasatul Islaam ayuu ku biray sanadkii 1986, waxaana uu dhiganay ilaa sanadkii 1989, waxaana uu si wanaagsan u bartay sharciyada iyo qanuunka Islaamka. Sheekh Maxamuud waa nin si wanaagsan u bartay diinta iyo sharciyada Islaamka, waa daacid diinta looga dameeyo kumanaan dad ayuu waxbaray. dabayaaqadii sanadkii 1983 ayuu bilaabay inuu waxbaro kumanaan dad, taasoo ilaa uu hadda u wado. waa nin shakhsiyad wanaagsan, jecel dadkiisa, go'aan adag oo afkaaban. Sheekh Maxamuud dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan inuu yahay wadani jecel in Soomaaliya ay mudoodo. inta badan laguma arko fagaarayaasha iyo ka hadalka siyaasadaha isdiidan ee Soomaaliya. dhamaadkii sanadkii tagay ee 2016 ayaan bartay Sheekh Maxamuud. qofkii bartay Sheekh Maxamuud waxa uu jeclaadaa inuu la joogo waqti badan, waana tan sababtay inaan wax ka ogaado taariikh nololeedka Sheekh Maxamuud. Sheekh Maxamuud waa aabe haysta 19 caruur oo ay kala dhalaan 5 haween. markii ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 waxa uu kamid ahaa culimada diinkii ku sii nagaaday dalka, waxaana uu xilligaasi waday ololihiisa faafinta iyo dacwada diinta Alle. inta uu joogay dalka waxa uu sidoo kale bilaabay olole labaad oo samafal oo lagu caawinayo dadka danyarta ee ku nool Soomaaliya. Sheekh Maxamuud waxa uu sidoo kale caan ku ah tafsiirka Quraanka Kariimka oo dadka inta badan ay kala socon jireen idaacadaha magaalada Muqdisho. laga soo bilaabo burburkii kama uusan bixin dalka Sheekh Maxamuud marka laga reebo safarada dacwada ugu baxay dalalka Kenya iyo Uganda, markale uu aaday dalka Sacuudiga si uu soo guto waajibaadka xajka. anoo Cabdisalaan Axmed Sheekh Kacaan ayaa idin soo koobayay taariikh nololeedka Sheekh Maxamuud Cabdulle Cariif oo kamid ah culimada diinka ugu magaca dheer Soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.